الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan eegaynaa casharkeenii labaad ee project shanta oo ahaa aynu hore bilownay. casharkeenani maanta waxa uu ku saabsan yahay section properties, gaar ahaan frame properties. Frame properties marka aynu ku shaqeynayno waxaanu isticmaalaynaa samaynta columnska iyo beamska. propertieskan halkan ku jira uma baahnin iska dheelitiraynaa si aan u samaysano properties cusub oo aynu inagu leenahay. aynu doonayna inaan dhiladweyno waxaan tegaynaa tan ay ku qoran tahay delete multiple properties. aynu saa ugu dhufano highlight garaysanayna delete baynu odhanaynaa. sidoo kale waan highlight garaysanaynaa delete baynu odhanaynaa. hal xaba aynu ugu hadhayso ay naga baxayn taana waxaanu iska saaraynaa marka aynu samayno dhammaan propertieskeena oo dhan. casharkeenani waxa uu si gaara ugu saabsan yahay sida loo sameeyo columnska. waxaanu ku dhufanaynaa add new property. waxaa noo soo baxaya propertieskeena. halkan waa concrete propertieskii ama shapeskii, steelshii iyo steel compositekii ama composite structurekii. concrete baynu ku doonaynaa. waxaynu doonaynaa rectangular column inaynu samaysano. waan ku dhufanaynaa. markaa way noo soo baxay magacyadan aynu la baxaynaa iyo columnkeena magaciisa. laakiin intaynan la bixin waynaynu ogaanaa imise column baynu u baahannahay gurigeena. sababtuna waxaa weeye culayska ku dhacaya columnka iyo culayska ku dhacaya columnadan dhexe centerka ah isku cabirnayo maaha. waa inaan columns kala duwan samaysano. kuwa afartaa kuwana waxaynu qaadanaynaa column baynu qaadanaynaa. sideedaa dhexana waxaynu qaadanaynaa column 2. afarta gudaha ku jiraan waxaan u qaadanaynaa column 3. kaa saddex nooc column aynu samaysanaynaa column 1, column 2 iyo column 3. markaaynu ku noqono column 1 baynu halkan la baxaynaa. cabirkeena aynu gashanaa. cabirkeena waxaanu qaadanaynaa 12 oo lagu dhuftay 20. propertieskeena aynu bedelanaynaa. mar walba columnka waxaa loo isticmaalaa 3500 psi. halkeena cabirkeena aynu gashanaynaa waa 20, halkana waa 12. waxaan tegaynaa modify shoulder bar. markaa column baynu ka dhiganaynaa haddaanaynu ahayn rectangular column baynu haysanaa waa inoo sax. halkan baynu imanaynaa clearku farkeena waxa weeye 1.5. waxaynu ugu xiga number of longitudinal bars in 3 direction face. haddaba maxay 3 direction maxay 2 direction way muhiimad inaynu ogaano. dacalkeena columnka inoo yar waa 3 direction, dacalkeena dheerna waa 2 direction. markaan dib ugu noqono halkeenii hadaba maxaynu ku helaynaa 2 directionka iyo 3 directionka. minimum spacing between bars waxa weeye 3 inch, halka maximumkuna uu yahay 4.5. markaaynu halkaa joogno intaaynu kusoo gudubno in daaqadeena dhamaysano. banaysano waxaan u baahannahay inaynu ogaano averagekan la soo baxno minimumka iyo maximumka. minimumkeenu maadaama ay 3 tahay, maximumkeenu tahay 4.5, averagekeedu wuxuu inoo noqonayaa 7.5 oo loo qaybiyo 2 oo la mida 3.75. markaanu haysano averagekeenu waa 3.75. averagekeenaasinu ku shaqeynaynaa. hadaba waxaynu haysanaa laba daaqadoon yaro kala duwan si ay daaqadan clear noogu noqoto. kan waxaynu haysanaa dacalkeena columnka dheer waxaynu haysanaa 20. calculatorkeena aynu tegaynaa 20 aynu dacalka haysanaa ayaynu qaybinaynaa 3.75 si aynu uga helno dacalkeena dheer ama 2 directionka cabirkiisa ama bariska aynu u baahannahay. waxaynu u baahannahay 5 baynu ku qoranaynaa. sidoo kale dacalkeena gaaban waxaynu haysanaa 12. 12kii baynu qaybinaynaa 3.75. 3.2 dacalka kalena weeye oo iyadana 3 baynu qaadanaynaa. halkan number 9 baynu isticmaalaynaa. halkana number 9. halkan waxaynu iyada isticmaalaynaa number 3. halkan 5 baynu isticmaalaynaa. halkana 22 baynu isticmaalaynaa. sidoo kale halkan 22 baynu isticmaalaynaa. waa confinement bariska. dib baynu jeegaraynaynaa waa inoo sax repairkeenu. okay baynu odhanaynaa. okay baynu haddana odhanaynaa.
propertieska inaan u baahnayn waa inaga baxaysaa. haddaba waxaynu odhanaynaa add copy property si aan u samaysano columnskeeni kale. column 2 waxaan la baxaynaa c2 cabirkiisaynu gashanaynaa. waxaanu gashanaynaa 15 oo lagu dhuftay 12. material baa noo sax. kalarka haddaynu doono iska bedelaynaa, haddaynu doono iska daynaynaa, wax dhib oo weyn ma laha. dhabsigii widthsigaynu bedelanaynaa. waxaan u imanaynaa aan bedelanaynaa number of longitudinal bariska 15 oo loo qaybiyey 3.75 waxay la mid tahay 4. halkeena kalena marka hore 12 baynu haysano waa noo sax. okay baynu odhanaynaa. add copy property baynu odhanaynaa. waxaan samaysanaynaa column 3 gayna inoo ah 15 times 19. halkeena waxaan gashanaynaa 19. halkeena waxaan gashanaynaa 15. modification to bar baynu odhanaynaa. kaas waa inoo sax. halkan waa inoo sax. halkan baynu imanaynaa. waxaanu leenahay 19 oo loo qaybiyey 3.75 la mida 5. sidoo kale halkan waa inoo 15 oo loo qaybiyey 3.75 oo la mida 4. column intaas inoogu dhan yahay. waxaan ka dhiganaynaa number 3 5 20 22 iyo 22. okay baynu odhanaynaa. columnka intaas weeye. halkaas aynu ku joojinaynaa columnkeena. assalaamu calaykum.